بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu yahay Cabdishakuur Daahir Barkhalle oo ku nool magaalada Coventry dadkan Coventry ayaa soo ururiyay lacagaha lagu deeqi doono insha Allah dadka abaaruhu ay ku haystaan magaalada gobolka Awdal lacagtaas oo cadadkeedu dhan yahay 4230 oo ku wareejin doono Mr Maxamed oo gudoomiyaha abaaraha oo مسؤولية كوفنتري isagoo markaa ku wareejin doona sheekha Allah mas'uuliyadda sheekha abaaraha deewatan iga gudoon bismillaahir rahmaanir rahiim jazaaka Allah khayr waxaan halkan kaga gudoomay Cabdishakuur lacag dhan $4230 lacagtaasoo community-ga Soomaaliyeed ee Coventry degan ay ugu deeqeen walaalahooda gobolka Awdal lacagtaas waxaan u diri doonaa gudoomiyaha gudida abaaraha ee gobolka Awdal Maxamed Daahir Dhawel hadii la yiraahdo isla maanta waxaan Ilaahay uga baryayaa intii bixisay ee gargaarka ka qayb qaadatay in miisaanka xasanaadka uu saaro meel roon bay sadaqadooda marsadeen Ilaahay inuu meel roon mariyo balaayooyinka dhacayna Ilaahay inuu kaga ilaaliyo kaga duwo Ilaahay ubadkiisa iyagana uu ku xifdiyo Sheekh Maxamedna waxaan leeyahay idina saas leeg reer Coventry inkastoo community yaraanu nahay haddana in yaro waxunay niyad wanaagsan oo isticaal oo yuhun leh Ilaahay anana way inoo soo duceyn doonaan khayrkana waafajiyo waxaanu Ilaahay idinka baryaynaa inuu abaarta idinka dul qaado qacan bilowdan lagu madhari qacanta Ilaahay baa lagu dhargay Ilaahay baa raxmadiisa ka codsanaynaa Ilaahay inuu inoo furo inuu culays Ilaahay nagu qaado qalbigana la isku kan furo waa mahadsantiin waxaan leeyahay jazaaka Allah qof kasto wax ku darsadayba Ilaahay خير بدن هاو بدلو السلام عليكم هلاو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ور محمد أحمد باكل صح الله يه ولا العقد واحد نقطي أفر كون لو بقولي صدن ها لو كون أفر كون يلا بقولي صدن بين نقطي ذهب شيل بان مكسور دقيقة haddii alla ilaa daweydinka noo soo duceeyna way soo duceeyna insha Allah Assalamu alaykum